bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada wararka National TV xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Ra'iisul Wasaare Roble iyo wafdi uu hogaaminayo oo dalka dib ugu soo laabtay kadib socdaal 4 cisho ah oo uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta warar ayaan idinkaga hayaa wiil uu dhalay hogaamiyaha Ahlus Sunna wal Jamaaca Macallin Maxamuud oo loo doortay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya doorasho maanta ka dhacday magaalada Dhuusamareeb iyo xildhibaanada ku soo baxay ayaad warkeena ku daawan doontaan wararkeena kalena waxa kamid ah maxkamadda Hargeysa oo go'aan ka soo saartay kiiska wariye Cabdimaalig Coldoon oo muddo badan u xirnaa maamulka Soomaaliland iyadoo sidoo kale maxkamaddu amartay in Cabdimaalig xabsiga lagu sii hayo warar ayaan idinkaga hayaa sidoo kale waxa daawan doontaan kuraasta taala magaalada Beledweyne oo qarka u saaran in la wareejiyo iyo doorashada Soomaaliya oo laga cabsi qabo inaan lagu qaban karin waqtigii loo asteeyay qodobadaasi oo dhan ayaan faahfaahin doonaa waa maalin Khamiis ah 3 Febraayo sanadka 2022 aan ka qayb qaadano dhismaha dalkeenna anagoo ka fogaanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasi nala fahantaane nala faafiya warkan idinkoo ku shaargareynaya baraha bulshada aan ku bilaabo warkeenna Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa dib ugu soo laabtay dalka kadib socdaal 4 maalmood qaatay oo uu ku tagay dalka isu taga Imaaraadka Carabta wafdiga ayaa waxa garoonka aadan cadde ku soo dhaweeyay qaar kamid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo uu horkacayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar intii uu Roble joogay Imaaraadka Carabta waxa uu kulamo kala duwan la qaatay madaxda ugu sareysa dalkaasi kuwaas oo ay kamid yihiin madaxweyne ku-xigeenka Imaaraadka ahna ra'iisul wasaaraha dalkaasi Maxamed bin Rashid al-Maktoum iyo dhaxal sugaha Abu Dubai ana ku-xigeenka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Sayyid An-Nahyan ra'iisul wasaaraha oo intii uu joogay Imaaraadka Carabta kulamo la yeeshay madaxda ugu sareysa dalkaasi ayaa socdaalkiisa ku qotomay horumarinta xiriirka iskaashi ee Soomaaliya iyo Imaaraadka fududeynta fiisooyinka dadka Soomaaliyeed ee u safra Imaaraadka Carabta dhoofka xoolaha Soomaalida ee loo iibgeeyo dalkaasi gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee abaartu hayso iyo qodobo kale oo quseeya gobolka geeska iyo xiriirka labada dal sida lagu yiri qoraal ka soo baxay xukuumadda wasiirka koowaad ee xukuumadda ayaa gaaray Imaaraadka Carabta 30 January sanadkan 2022 ayaga oo ay wehelinayeen qaar kamid ah golihiisa wasiirada waxayna kala ahaayeen wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Abuukar Xaaji Carab inta badan caasimadaha dawlad goboleedyada waxa ka dhacay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya wallow maamul goboleed walba laga doonayay in laba magaalo oo ay caasimada ku jirto lagu qabto doorashada waxay u eg tahay in maamulada ay ka gudbi doonaan caasimadaha marka ay soo dhameeyaan kuraasta taala waxaana hadda ugu dhow maamulka Koonfur Galbeed oo ka dhamaatay doorashadii loogu talagalay magaalada Baydhabo maalmo ka horna shaaciyay kuraastii ugu horeysay ee Baraawe oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulkaasi marka loo eego cagajiidka ay ku socoto doorashada iyo waqtiga oo kulaalaya waxay u eg tahay in maamulada ay ciyaarayaan kaalin ay ku doonayaan in laga maarmo magaalo labaad oo dhammaan kuraasta lagu wada doorto caasimadaha magaalada Kismaayo waxa ku lamaan Garbaharey waana mid dood badan ka dhalan doonto kuraasta iyo hardanka loo galayo sida xildhibaanada ka imaanaya gobolka Gedo marka la eego Beledweyne oo xiisado siyaasadeed ka jiraan oo ay ku sugan yihiin golaha la baxay kacdoonka Hiiraan ciidan hubaysna haysta ma sahlana in doorasho wadar ogol ah ka dhacdo xilli magaaladaasi yaalaan 25 kursi oo golaha shacabka ah qorshahaasi waxa uu u eg yahay mid ay gadaal ka riixayaan hogaanka maamulada ay ku adag tahay in doorasho ay ku qabtaan deegaan doorashadooda labaad tirada guud ee maamul goboleed waliba laga doonayo in uu soo doorto waa ay xadidan tahay waana lambar la yaqaano tirada laga sugayo waxna kuma darsan karaan waxna kama reebi karaan balse kuraasta oo deegaan doorashadoodu la bedelo ayay maamulada ku heshiin karaan sida Lafta Gareen iyo Axmed Madoobe sameeyeen isbuuciyo ka hor iyadoo sidaasi tahay ayaa haddana waxay dadka isha ku hayaan doorashada Gaalkacyo iyo Boosaaso kuraasta taalo oo kamid ah meelaha xildhibaanada mucaaradka ah ku badan yihiin deegaan doorashadooda waxaa laga yaabaa in muddada 40 cisho ee loo balamay doorashada ay ku dhamaan karin bil ka yar ama hadda dhiman wax ka badan 150 mudane ayaana weli la dooran
Jubbaland waxaa ku adag doorasho ay ku qabato Garbaharey maadaama kuraasta taala halkaasi ay yihiin kuwa ay uga shakisan tahay in ay ku xisaabtamayso villa Soomaaliya. Haddaba jilitaanka siyaasadeed ee socda waxa ay u muuqataa in doorashada aysan ku dhammaan doonin xilligii loo caymay, sidoo kalena waxaa laga dhor sugayaa xilliga maamul goboleedyada ay bilaabaan doorasho ka dhacda magaalooyinka labaad. wararka doorashada haddaan ku sii socdo, magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxaa ka dhacday doorasho kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. doorashada oo kursigii ugu horeeyay ee hoob 139 la qabtay ayaa waxa ku soo baxay Cabdisamad Macalin Maxamuud oo loo doortay ka mid noqoshada baarlamaanka 11aad ee dalka. Cabdisamad ayaa si gaar ah loogu xiray kursigan waxaana u tanaasushay Xamdi Cali Shire oo ahayd malxiisad, kadibna waxaa loo qaaday codeen gacantaaga isagoo helay 101 cod oo ah dhammaan ergadii goobta ku sugnayd. xildhibaan Cabdisamad ayaa waxaa dhalay hogaamiyaha kooxda Ahlusunna wal Jamaaca Macalin Maxamuud Xasan, waxaana kursigan uu u muuqdaa mid lagu qancinayo Ahlusunna oo horay dagaal ula gashay dowlad goboleedka Galmudug. kursigan ayaa waxaa ku fadhiyay baarlamaanka 10aad Cabdixakiim Macalin Axmed oo dhawaan loo doortay golaha aqalka sare ee Soomaaliya. dhinaca kale xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ayaa mar kale isagana dib loogu doortay golaha shacabka Soomaaliya kadib doorasho ka dhacday Dhuusamareeb. Mustaf Dhuxulow ayaa waxaa la tartamay 3 musharax oo kale, kuwaas oo kala ahaa Cabdulaahi Cabdi Guutaale oo helay 22 cod, Cabdinuur Ciise Xiire iyo Jamiilo Cali Xayle. sida uu shaaciyay guddiga hirgelinta doorashada ee Galmudug, Mustaf Dhuxulow ayaa helay 68 cod, murashax Guutaale ayaa isna helay 22 cod, halka Jamiilo ay heshay 5 cod, halka uusan waxba cod ah helin murashax Xiire. sidoo kale waxaa halaabay 3 cod. guddiga ayaa sheegay in kursiga tirsigiisu yahay hoob 49 uu mar kale ku soo baxay xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow oo ku biiraya baarlamaanka 11aad ee dalka. waa tahay weli waxaad daawanaysaan wararka National TV si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. fadlan subscribe saar YouTube-keena kadibna fura gambaleelka. maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee magaalada Hargeysa ayaa ku dhawaaqday in Cabdimaalig Muuse Coldoon lagu waayay wax dambi ah, ase yeeshee maxkamaddu waxay sheegtay in uu xabsiga ku sii jirayo. goordhow ayaan eegi doonaa, ase ahaatee qadar yar. balaayada naga duqaado alowgalka loo hagaaji alowgalka xumaanta balaayada naga duqaado alowgalka loo hagaaji. warar noocee ah ayaad doonaysaa? ma wararkii ugu dambeeyay? ma dhacdooyinka kaa yaabiya mise kuwa ku dhiirigeliya? ma doonaysaa inaad ogaato waxyaabaha cusub ee socda? hadday jawaabtaadu haa tahay National TV, ka dhiga wehelkaaga. booqo baraheena bulshada adiga oo raadinaya National TV. subscribe saar YouTube-keena kadibna riix gambaleelka. National TV waa wehelkaaga. waa tahay qeybaha dhexe ee wararkeena ayaan soo gaarnay. markana wararka Somaliland. maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee magaalada Hargeysa ayaa maanta ku dhawaaqday in wax dambi ah lagu waayay wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon. xukunka ay maxkamadda soo saartay ayaa ka dambeeyay kadib kiis muddo dheer soo socday, balse xeer ilaalinta ayaa racfaan ka qaadatay go'aanka ay maanta maxkamadda gaartay. Cabdimaalig ayaa xabsiga ku sii jiri doona tan iyo inta go'aan laga gaarayo racfaanka xeer ilaalinta. booliska Somaliland ayaa xiray Cabdimaalig Coldoon bishii Agoosto ee sanadkii aynu soo dhaafnay 2021. haddaba maxaa ka mid ah dacwadaha lagu soo ogay? sida ku xusan warqadda xeer ilaalinta, Cabdimaalig waxaa loo haystay dhowr eedeemood, waxaana ka mid ah eedeemaha loo jeediyey 1 in uu bartiisa Facebook ku faafiyay warar dacaayad ah iyo been abuur oo ka dhan ah iskuulka Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo. qodobka kale ee lagu soo ogay Cabdimaalig ayaa sidoo kale ahaa in dacaayad qaran dumis ah uu fidiyey. dacwada kale ee lagu soo ogay Cabdimaalig in uu cambaareeyay ummadda Somaliland iyo sidoo kale qarannimadeeda.
qareenkii u doodayay Cabdimaalig Muuse Coldoon oo lagu magacaabo Jamaal Mandela ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in ay kiiska ku guuleysteen. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dacwadaasi ku guuleysano, balse waxaan ka xunnahay in weli xabsiga uu ku sii jiro iyadoo maxkamadda ay amartay in xuriyadiisa dib loogu soo celiyo, ayuu yiri Mr. Mandela. inta aanan la xirin ka hor Coldoon wuxuu maalmaha qaaday olole ka dhan ah xarunta dhaqanka ee Hargeysa iyo dugsiga Abaarso. waxa uu ku doodayay in xarunta dhaqanka lagu martiqaado dad u ololeeya guurka dadka isku jinsiga ah xiliyada bandhiga buugaagta. sidoo kale dugsiga Abaarso ayuu ku haystaa in dhaqamada masiixiga lagu faafiyo, labaduba si kulul ay u beeniyeen eedeymahaasi. xukuumadda Somaliland ayaa sidoo kale gaashaanka u daruurtay eedaha uu Coldoon u jeediyay xarumahaasi. sidoo kale qaar ka mid ah abwaaniinta ugu waaweyn Somaliland ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaha uu Cabdimaalig Coldoon u jeediyay maamulka Somaliland. xeerlaalinta weli kama aysan hadlin eedeynta ka soo yeertay qareenka Cabdimaalig Muuse Coldoon. waa tahay daawadayaal, halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen barteena YouTube-ka ee National TV. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeena. inta ku kulmi doono wararkeena soo socda, nabadgelyo. markasta nagala soco National TV. warar noocee ah ayaa doonaysaa? ma wararkii ugu dambeeyay? ma dhacdooyinka ka yaabiya mise kuwa ku dhiirigeliya? ma doonaysaa inaad ogaato waxyaabaha cusub ee socda? hadday jawaabtaadu haa tahay National TV, ka dhiga wehelkaaga. booqo baraheena bulshada adiga oo raadinaya National TV. subscribe saar YouTube-keena kadibna riix gambaleelka. National TV waa wehelkaaga.